Bismillahirrahmanirrahim. Waxaan wanaagsan dhageystayaal saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka falanqaynta caalamka oo xilidan oo kale aad ka daawataan warbaahinta Naafici Show. Waa 9 bisha 7 2026 qodobada aan qaybtan idinkuga haynana waxaa kamid ah ma doonaysaa inaad noqoto qof quraanka kariimka si sax u aqriyo ku soo dhawow markaska barashada quraanka kariimka ee Darul Qur'an online waxaad heli doontaa quraanka kariimka tajwiid iyo tahfiid ingaada quraanka bilow ilaa heer sare ducooyinka muhiimka sida xisnul muslim faa'iidooyinka dugsigan uu la gaarka yahay waxaa kamid ah macallimiin khibrad u leh casharada online ka meel kastoo aad joogto waad ka baran kartaa jadwal fudud oo ku habboon caruurta iyo dadka waaweyn labadaba waa la qaadanaya waxaa ka hortaagan maanta bilow safarkaaga quraanka kariimka ana kon qof dib u dhigta khayrka alle diiwaan geli nambarka shaashada kaaga muuqda ama guji calaamada WhatsApp ee hoos iska dhaxay ciidanka Mareykanka oo wax yar ka hor ku dhawaaqay inay soo gabagabeeyeen weeraro ay ku qaadeen gudaha Iran iyagoo sheegay inay tan iyo xari weeraro 90 bartilmaameed oo military ah oo Iran ay leedahay kuwaas oo ay ku jiraan nidaamyada difaaca cirka iyo qalabka lagu ilaaliyo xeebaha war saxaafadeed ka soo baxay ayay ku sheegeen sidoo kale inay weli ku jiraan heegan buuxa iyo diyaar garow dagaal ayna diyaar u yihiin inay fuliyaan howlgal kasta oo uu amro taliska guud ee Trump waxayna intaas ku dareen waxaan bartilmaameedsanay goobo lagu kaydiyo gantaalada iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo awoodda badda iyo kaabayaasha adeega military ee ku teesan xeebaha Iran ayay raaciyeen hadalkooda waa taliska guud ee ciidanka Mareykanka dhinacooda ciidanka ilaalada kacaanka Iran ayaa shaaciyay inay weeraro isxigxigay ku qaadeen saldhigyada uu Mareykanka ku leeyahay bariga dhexe iyadoo mar kale ku hanjabay inay ballaarin doonaan saldhigyada Mareykanka uu ku leeyahay weerarada ay ku hayaan haddii Mareykanka uu sii wado ay dheen weerarada tan iyo xalay uu ka geystay gudaha Iran sida ay baahisay Al Jazeera dhinaca kale weli waxa soo taraya cadaadiska la saaraya madaxweynaha Mareykanka Donald Trump kaas oo ay ku hayaan Netanyahu iyo kooxdiisa taliyaha guud ee ciidanka cirka ee Israa'iil ayaa ka hadlay suurtagalnimada in Turkiga uu helayo diyaaradda dagaalka ee F-35 waxa uu yiri waa run in F-35 ay tahay diyaarad dagaal oo casri ah laakiin looma baahna ayuu yiri in arrintan la buunbuuniyo waxa uu intaasi ku daray ma aha diyaaradda ugu awooda badan dhinaca dhaqdhaqaaqa iyo leexleexashada hawada sidoo kale waxa uu sheegay diyaaradda F-36 ayaa kaga fiican ayuu yiri F-35 dhinaca dhaqdhaqaaqa hawada halka F-35 aysan qaadi karin ayuu yiri tiro la mid ah bambooyinka ay qaadi karto F-35 Trump oo u muuqday inuu asagana laclacay ayaa si qaldan Japan uga eedeeyay inay 11 gantaal ku weerartay mid ka mid ah maraakiibta dagaalka ee ugu muhiimsan Mareykanka ee Abraham Lincoln halkii uu ku sheegi lahaa inay Iran tahay cidda weerartay markabkan waxa uu yiri Jamhuuriyadda Islaamiga ee Japan ayaa 11 gantaal ku riday maraakiibteena xambaara diyaaradaha kaas oo u muuqda qalqal ka muuqda madaxweynaha Mareykanka ee isku dhaxaya ay waxa uu ka hadlaya ayuuba aqoon waayay